dabaaldegi doonaa qalin jabintooda barnaamijkan waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyaro dadaal iyo karti badan muujisay kuwaas oo jeclaystay in ay la qaybsadaan farxadda walaalahooda kale mar kale anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca guddiga soo qaban qaabiyay barnaamijkan waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan waxaan rabaa inaan u yeero Xamdi Gurxan bal si ay nooga hadasho barnaamijkan wuxuu yahay muhiimadda ay u leedahay caawa kale in ummadda ay isugu timaado siba dhalinyarada qalin jabis maadaama ay iga dhaheen in aad 10 daqiiqo hadlayo så kör jag på svenska istället för att somaliska kanske inte håller hela vägen. Jag vill välkomna er alla till det här programmet som vi har kört ihop för alla er som har tagit studenten. Och jag ska prata om hur viktigt det är det här med kunskap. Och även om ni har tagit studenten betyder det inte att det är slutet på resan utan det är alltid en början. Och eftersom vi är framtiden för imorgon och att det är vi som ska sätta upp grund och regler för framtiden så säger jag till er att utbildning är viktigt. Och för att komma någonstans så behöver alla vi här utbilda oss för att vi ska göra någonting för vårt land och för oss självständigt också. Så det är väldigt viktigt. Och det är väldigt viktigt, jag understryker detta, att ni fortsätter att gå på universitet och utbilda er för eget bästa och för att vi ska bli något för vårt land. waxbarashada sideeda lagama weynaado lagama naqaan gaaro haddii aad daawateen TV-yada Soomaalida waxa maalin wada laga soo daayay barnaamij lindadiisa 80 sano asagoo ku socda qaata shahaadadii jaamacadda taasi waxay ku cadeynaysaa in waxbarashadu aanu ahayn mid laga caajiso heeskii Soomaaliga ahaana wuxuu ahaa waxa laga yaabaa dadka idinkeeda ka waaweyn Soomaaliya ku soo koray inay garanayaan waxbarta aan barwaaqo gaarnay kulay heesihii gobada ahaa ee dhalinyarada wax loogu sheegi jiray ereyadaas iyo kuwa kale ayaa kamid ahaa waxba yana hadalka badine waxaan rabaa inaan u yeero Ali Gani intaan u yeeray muhiimadda uu Ali caaw halkan ugu iman doona waxay tahay jaamacad in la galaa aqoon sare in la qaataa horta ma muhiim ba isma ahan su'aashaas adinka yaa saga ayaan u daynayaa jawaabteeda bismillaah dhammaan dhalinyarada waalidiinta iyo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan aad aan ku mahadcelinayaa runtii mar rabo inaan wax badan ka hadlo maantay laakiin waxa raba wax yar kaliya oo ah su'aasha ah jaamacad dugsiga markii laga baxo in jaamacad la aada qasamiya maxay muhiimad u tahay maxaa u soo bilowday birimo fasalka koowaad ilaa jaamacad loo wadaa taas way horta waxa muhiimadda in qof walba is weydiiyo oo ka fakaro waxa jirto Soomaalida saddex jaran la maraa oo ah qofka inuu saaqid noqdo inuu barto farsamo ama maxaa la dhahaa wax la yiraahdo technicality iyo inuu jaamacad dhigto waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed laba inay sameeyaan laakiin mid saddexaad waa ku yiri aad ugu yaryahay aad wax yar waay qofka hadduu dugsi sare dhameeyo wuxuu yiraahdaa jaamacada aada oo moolkiisa ama maxaan ku raahdaa aimkiisa koowaad wuxuu yahay inuu jaamacada aado midna wuxuu yahay bal horta iska dhameey dugsiga sare ka bacdi waxa way qaan gaaraysan weyn baan noqonaysaa tuqiitriida wax badan aad seexanaysa laakiin waxa isleeyahay waxa ka maqan dhexda ka baxay wax muhiim ah oo qofka jaamacadda aan ka bixi karin u baahan yahay inuu barto qofka saaqidkaana ama saxooga kulliyada waxbarashadana uu ka bixi karo labadaba ay ka bixi karaan waxa weey taas waa waxaan ah
technicality ama se farsamada gacanta oo kale la barto farsamada la bartaahi way ka badan tahay 100 nooc aniga runtii Soomaaliya ayaa mar dhow ka imaaday markaan tagay dhalinyarada sida inta amal waay mid oo shaqada markuu dugsiga ka baxo faraha ka qaado iyo mid jaamacad barto jaamacadaha ugu badan oo dhalinyarada Soomaaliya ay bartaan waa koow caafimaadka labo waxa la yiraahdo economy management dhaqaalaha iyo maamulka laakiin Soomaaliya markaan tagay waxa la yiraahdo farsamo nooc rabtaan noqoto ama electric ka noqoto ama se molare goloflega ultimately soccer xaqada marka laga hadlo ma laha complete aniga meel badan tagay xamar waa tagay sanadkii hore gaalkacyaan tagay hargeysana waa tagay macnaheedu waa waxaan fiiriyay ama aan baaray ahayd ma laho in ay bartaan dhalinyarada hadday jaamacadda ka bixi waayeen inay farsamo bartaan ay ku shaqeystaan oo faa'iido leh maxaa yaa ka shaqeeya hadda farsamada Soomaaliya koronto ay leedahay biyo ay leedahay roor leegar alda mooliga soo ka jiraan yaa ka Soomaali ma aha farsamo ay barteen oo cilmi intuu barteen ku shaqeystaan Soomaaliya ma jirto maxay yaa u shaqeeyo Kenyaati Bangladesh iyo dad Hindi ah ayaa ka shaqeeya waliba dadka ugu badan mostly u badan oo farsamo yaqaanka waa Hindi baash maxaa la dhahaa Kenyaati waay xaggan waa sidoo kale macnaheedu ceema waxa laga yaabaa qofka inuu yiraahdo naga dhaafniyo aniga electric iyo roor leegaray iyo maxaa kar moolaray ma noqon karo qalad waay shaqo fiican waay hadda jaamacad the best wax ugu fiican waay inaad barato oo aad maxaan ku raahdaa educator noqoto laakiin hadda jaamacad weyso awoodi weyso farsamada ha seexanin guriga maxaan ku raahdaa social bedrock ha sugin laakiin farsamooyin badan oo sahlan ah jira la baran karo oo aad inta uga faa'iideysan karto ku shaqeysan karto dalkaagiina uga faa'iideyn karto laakiin aan moolkeena koowaad ama ujeedadeena koowaad waa inay noqoto qofka inuu wax barto awoodda waxaan saarayaa inaad ogaataan inaad tihiin Soomaali Swedish hadana okay Soomaaliya tihiin hadda waxaan isku joogaa inta wax waa Soomaalinimo waay dhalinyarada tihiin Soomaaliyeed laakiin inta ku dhalateen ku soo korteen endel waxaad tihiin Swedish aad tihiin marka labadaba inaad ku tala gashaan inaad wadanka aad joogtaan oo dhalateena aad wax ka qabsataan wax ka barataan dalkiina wax ka qabataan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankii joogta jaaniska haysataan ayaga ma haystaano taas way inaga faa'iideysanaa marka adinka wax barasho lacag laan haysataan nolol haysataan waxa haysataan jaanis aysan haysan kuwaas waxa laga barto halkan xagga ma laga barto aad ugu liidata wax barashada waa ogtiin waa wadan dagaal intaasna ku jiray taas marka waa muhiim inaad adinku wax barataan si aad kuwaas wax bartaan labo waa inaad ku fikirtaan mustaqbalka soo socda in waxa adinka aad barateen xagga ku bartaan adinka aniga caawa laga bilaabo waxaan dhihi karaa dhalinyaradii wax barataa tihiin adinka inta joogta hadda nin walba maskaxdiisa geliyo sanadka dambe markaan qalinsiminta aan sameeyno sanad soo waxaan sameynaynaa ardada jaamacadaha ka baxda ayaan xaflada u sameyn doonaa sidaan oo kale markaas dhalinyaro badan hadda jaamacadaha bilowday oo awlaan dhiga jireen waxa adinka barateen sanad dambe oo kale in la helo 20-30 arday oo Soomaaliya ah oo soo faa'iideyso dhalinyaradaas kale wax soo baraad list wax u sheego mentality ay aaminsan yihiin laga bedelo maxaa lagu bedelayaa waxa adinka aad taqaaneen horumarka aad meeshan ku haysataan in wax ka siisaan taasna waa muhiimadda koowaad laakiin sanad kasta inaan qabanno xaflad dhiirigelina dhalinyarada wax barato koofiya la qaatay maxaa ku xigo inay eber noqoto marna waxaan ma in wax ka soo baxaan sanadkii afraad oo hadda aan sameynayno xafladan 4 sano ka bacdi 3 jaamacada waa 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano waa sanada soo socda ama sanadka dambe oo kale waxaan sameeynaa dadka dhalinyarada jaamacadaha dhigto inaan u sameeyno xaflad imisaariga jaamacadaha inaan sameeyno
maxaan ku raahdaa statistic aan sameeyno intii laga faa'iiday inta ka faa'iidina ujeedkaygu wuxuu yahay ujeedka xafladan waxay tahay isku imaadkeena waxa uu yahay waxbarasho bis wax kale ma wax kale oo suruud kale oo idinku xiraa ma jirto inaad wax barataan naftiina wax barataan oo ogtiin qofka wax bartay iyo qofka aan wax baran maxaan ku raahdaa khilnaadka u dhaxeeya aad u kala fog yihiin sama footballka is okay waa rag badan waxa jira banooniga xiiseeyo oo laacibeena is okay laakiin ogaada nimanka oo laacibeenta oo aan ku dayano ayagana waxay barteen wayna shaqo banooni way dheelaan waxna way bartaan laakiin hadda hal wax gasho ma ah micnaheedu inaad wax dambe ka baran karin activity-ka evicted way free-tidka ina qaato okay laakiin maxaa ka horeeyo mustaqbalka ka horeeyo mustaqbalkiina inaad ka fikirtaan sida hadda caaw meeshan u joogan maasha Allah khayr Allah siiyo wax fiican aad barateen wax fiican aad soo sameyseen laakiin wax yar idin haray sama maxaa jiro 12 sano wax soo dhiganayseen jaamacadda ugu badan waa 6 sano markaad bachelor tan u hor talaabada ku qaadaysaan laakiin bachelor master PhD jaranjarooyin badan waay laakiin at least hal xabba ku dara bis ninka hal talaabo 3 sano 4 sano soo dhigto is okay waxa waaye maxaa academic raatay okay waay laakiin sanad kasta waxa 200 qof wax barasho qaadato ku fiturto 10 laga yaabo inay video noqoto ay sii socoto waxaan kula dardaarmayaa waxbarashada 1 2 3 muhiim waay shuruud kale oo idin saaran ama sakaroof kale idin ku xiran ma jiro wax sabab aad marka wax u baro weysaan dantiina uga fikir weysaan ma jirto aad ba mahadsantihiin waan soo dhaweynayaa sanad dhamaan noombala assalaamu calaykum waraxmatullah hadal badan haba bixiyaa la yiri waxaan rabaa markan inaan u yeero waxa weeye madaxa suuqgeynta iyo wax soo saarka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee Somali National TV Abdullahi Iman habeen wanaagsan waa mahadsantiin waxaan u mahadcelinayaa xafladan quruxda badan dadkii soo qaban qaabiyay ururkii soo qaban qaabiyay SSA oo dhalinyaradan da'da yar ee maanta secondary-ga ama university ama dugsiga sare soo dhameystay oo farxadan ballaaran ku qaadanaya waxaan rajaynayaa ilaa heer jaamacadeedna waa ka codsan lahayn Soomaalida inay sii gaaraan maanta heerka ay secondary ka joogaan waxbarashada aad aan ugu liidanaa laakiin mustaqbalka Sweden waxaan rajaynayaa Tabori inay noqdaan dhalinyaradan dadkii ugu horeeyay ee Soomaaliya meel weyn gaarsiiyo dhibaato weyn anaga haysata caalamka waad aragtaan koonfur Afrika wixii ka dhacay waad aragtaan waa waxaan loo dul qaadan karin oo Soomaalinimada ay dhibayso waxa looga bixi karaa in wax la barto oo nolosha adduunyada la higsado heerka maanta ee maraysa inaan la gaarnaa looga bixi karaa waxay sugaysana waa dhalinyaradiinan marka waxaan idinka guubaabinayaa inaad waxbarashada sii wadaan inta idinka dambaysan inaad ku guubaabisaan anigu hadal badan uma imaan wariyaan ahay wariyana waxaan u maleynayaa way noo joogaa waxaa noo joogta Igraan oo kaalintii maanta noo joogta qaybta xiriirinta aadan idinkaga mahadcelinayaa dadkii soo qaban qaabiyay ardadana waxaan ku waanaa inaad waxbarashada halkiina ka soo wadaan waa mahadsantihiin Abdullahi waa orday waa degdegay waxaan islahaa daqiiqada aad u far badan buu hadli doonaa laakiin hadal macquul ah oo wax ku ool ah ayuu idinkaga tagay Soomaaliya adinka ay idin baahan tahay waan ku celinayaa kelmadaas mar kale iyo mar saddexaadba annaga oo halkan joogna dalkan waa ku kornay waxna waa ku barnay markaan annaga leenahay adinkan ula jeeda hadalka isku hadaad fiirisaan dadkeeda ayaa dhisay dhalinyarada ayaa meel walba taagan wax dhisaya wadana dhalinyaradiisa dhisa Soomaaliya maanta heerka ay taagan tahay adinka ay ka kicin kara adinka ayaa maanta meel aan laga filanayna geyn kara sidaas aawadeed dal aadan leh waa dareen ku joog dal dalkiina u baahan dhalinyaro imaanka taas ku haya waxba yana hadalka ila fogaanin aaw dhawaan jeclaan inaan hadlo laakiin waqtiga aad igu yar awgeed waxaan rabaa inaan mar kale aan u yeero waxa uu kamid yahay qaban qaabiyaasha waa aabe tusaale fiican in loo soo qaato mudan meel walbaana waa uu taagan yahay waxa uu intaas u ordayaana waxa weeye sidii uu Soomaalida u matal wax ugu qaban lahaa waxa uu ka hadlayaa caawa mowduuc qiimo leh oo ah maxaa dhacay bas dhageysanayna bas waxaan rabaa inaan u yeero marka
kooxdii caanka ku ahayd maaweelada marka laga hadlayo hidii dhaqanka waa kooxdii midnimo oo dhagahoodii iyo ciidankoodii wataba waxaan u malaynayaa kolley inaad u soo diyaar garowdeen xafladda walaalihiin oo studentiga qaatay oo meesha fiican sii hiigsanay insha Allah ilaahay idankiisa inaad u soo diyaar garowdeen aan u malaynaa ood cayaar ugu soo tala gasheen ilaahay waxaan idinka baryayaa kuwii aqoontooda ku aflaxo inuu ilaahay idinka dhigo kuwii aqoontooda loo aayo inuu ilaahay idinka dhigo kuwii wax ku dheefo waxbarashadooda inuu ilaahay idinka dhigo kuwii isku duubma inuu ilaahay idinka dhigo kuwii wax isla qabsada inuu ilaahay idinka dhigo ilaahay taasaan idinka baryayaa tan kale walaalihiin waxay idinku soo talagaleen cayaar hidiya dhaqan inay idin dheelaan maadaama aad qaadateen studenti aad qaadateen marka hidaha iyo dhaqanka bal wax ka barta waa taqaanaanay haddana sii siyaadsada waxaan idin leeyahay jiro oo jooga insha Allah kuwa dambe soo kacayana meel fiican ilaahay ayagana ha ku aadiyo oo sii hiigsanayo idinkana waxaan idin leeyahay insha Allah ilaahay waxaan idinka baryayaa kuwa aqoontooda miraha ay gurteen intay u sii baxaan ka sii batay la sii gurto ummadoo dhan u aydo Allah idinka dhigaa idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عبد العزيز عبد القادر وحاو كهل دونا موضوع تقيمه له oo isfahanka iyo xiriirka ka dhaxeeya waalidka iyo dhalinyarada عبد العزيز السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان ولا ماشي ما تسقيمة وماسيين dadka walaalaha ka soo shaqeeyay kuma haboonay in meeshan istaago laakiin waxaan ka dhiibanayaa codkayga qof kasta oo bilaadana waxa dhashay hooyo ayaa dhashay waxaana qofkaas waqti 9 bilood ayuu qofku urkiis ku jira ka bacdi uu dhasha hooyadana markaas marka uu farxad badan tahay marka hesho ilmo ودريمي كرتانا هويوينكا عن عرورت هيسن سيدي نيدو تهي هويوينكا عرورت هيستا دالشا كدب فرحداس هويدا فرحدي وحي جعلان لهيد إن محايا هيتو عنيقا داش أبالقود إنها كيشو أبالقود كاس نوحو نغن كرا دور قيبوت مدو كواد وحو نغن كرا إن والد كاس عرورتيس او دوغن ولادو أما او نغدو qof waalidkiis dhageystay midda labaadna waxa noqon kartaa waalidkiis inuu ku farxo markii cunugiisa uu wax bartay oo abaalgud xagga adduunyo xaq aakhiraba uu sameeyay marka dhamaanteena waxaan ognahay markii qof walaalka ama qofka aad dhashay ama qof saaxiibka ah markuu uu ka gaaro adduunka meel aan dareemaysid in ay tahay wax fiican
saadaradeed ayaa dhammaanteen jeclaan lahayn inaan helno qof garabkeena taagan qofkaas oo ah qof midalan oo annagana bushgareeyo oo dhaha waxa waay maasha Allah waxa soo baratay ama waxaalaan ku dadaal mid ugu muhiimsan dhammaanteen asfahansan waxa laba qaybood waay mid koowaad wixii aan marka aan sameynayno inaan ka run sheegno oo runtii aan ka sheegno maadaama dad badan aan annaga Soomaaliyeedna aan waxa waay aan ku hadalno marka waxaan sameynayna insha Allah waxay noqotay waxa waay wax aan sii soconin laakiin dhammaantiin waxa ogtihiin maanta inaad tihiin idinka dadkii hormuud ku ahaa Soomaalida Sibayo Tabore waxaana la sheegaa ugu yaraan inay joogto hadda Soomaalida iyo Tabore 20 kun camal nasiib badanayaan maalin kasta taasna ay keenayso in aad waxa waay aad tihiin dadkii tuslaa jinsiyadaha kale sida Iiraanta camal aad ay isku caawiyaan dad waxa jira iskuulaha dhiga jirna Iiraan oo aad waxa waay marka qof iyo wadankooda ka yimaado tuso jiray jidka la marla laakiin maadaama anaka aan imaanay 90kii wixii ka dambeeyay ayakana 70meedii qaar yimaadeen ay u fududahay inay qofka kale caawiyaan saadaradeed dadka idinka mid ah oo rabo qofka walaalkiis ah ina horta ogolaano annaka Soomaalinimadeena ina ogolaano sababtoo markasta waxa taa Soomaali u afseed ah meesha aad joogtid iyo waxa aad iska dhigaysid markii aan soo noqdo mowduuciga ah waalidka iyo dhalinyarada xuquuqda waalidka in la isku leeyihiin waa badan tahay waxaana dareemi kartaa marka idinka wax dhashan ma sha Allah ani waalid waahay waana ku faraxsanahay waalidahay waxaan u mahad celinayaa waxa hooyadii macaan oo intaas oo sano igu soo kornaysay inaan noqdo qof u mahad celiya marka waalidka waxa loo baahan yahay inuu isku dayo sida waxa cunugiisa meel fiican u gaarsiin lahaa idinkan waxa kaga baahan yahay waalidkiisa ugu mahad celin lahaydeen xag aakhira iyo xag adduunyo taasna oo idinka keenaysa in arki doontaan maalinta wax dhashaan marka kulleey ikraam in ka soo rabtaan wax badan si hadlo aan ku fiicnaan hadalka intaas ayaan ku soo koobayaa idinka wax noqda caruurtina waxay noqonaysaa waalidkeena in aad ka duceysataan ayaan ku darmayo assalaamu calaykum Nej. Jo, han sa det nyss. Nej. Jag sa till alla att de inte ska göra det. De ska inte göra det. En kram till mig. En ros. En stor applåd. Nästa person är Hamdi Farah från GTI-gymnasiet. Applåder. Vi har en till ung man här. Salman Mohammed från Kunskapsgymnasiet. En kram. Applåder. Vi har en annan fin flicka här, Hudde Mohammed från IT College. Varsågod. Vi har en till ung man här. Elias Jama från Burgården. Tack så mycket. En till tjej här. Halima Mohammed. Från Angeredsgymnasiet. Vänta. Så nu.
Applåder! Vi har Maha Samer. Burgården. Burgården. Applåder, vad gör ni? Nästa vi har här är Abdrahman Jama från Angeres gymnasiet. Applåder. Nästa person är Qasim Hurje från Framtidsgymnasiet. Applåder. Vi har en till dam, Hafsa Abdi från Angeres gymnasiet. Applåder! Vi har en fin till liten flicka, Marianne Ali från GT-gymnasiet. Applåder! Applåder! Nästa tjej är Ilhan Sugule från GT-gymnasiet. Applåder! Vänta, var är vi? Nästa är Mona Mohammed från Angereds gymnasiet. Applåder! Woo! Nej. Mona, grattis! Nästa är Qadar Abdullahi från Kruxlätts gymnasiet. Applåder, vad gör ni? En till kille här. Vi har Abdi Wakil Hugur från Kruxlätts Framtidsgymnasiet. Stor applåd! Nästa tjej här vi har är Sara Hussein från Mikael Elia. Grattis! Nästa vi har framme är Mustafa Mohammed från Framtidsgymnasiet. Stor applåd! Will you accept my rose, Mona Darod? Grattis! Kolla vilken speciell. Nästa tjej vi har här Nasra Mudey från Burgården. Han ser ingenting.
Jag känner att applåderna börjar minska efter varje gång. Vad är det ni håller på med? Ge kärlek, alla hälften nu har fått rosor. Ge kärlek till resten. Resten vi har här framme är Amal Wassam från Angereds gymnasiet. Jag vill tacka alla som är här för att ni är här idag. Era närvaro är värmande. Men på riktigt, utan er det här skulle inte hända. Så jag tackar alla för den här chansen. Och tackar er själva också. Jag hoppas det går bra i framtiden. Tack så mycket.